kusoo dhawaada challenge-ga xabsiga ninkan ciidanka ah iyo sidoo kale ninkan dambiilaha ah ayaa wada noolaan doona 100 maalmood si wada jira waxaana guuleystaha lagu abaalmarin doonaa $500,000 way isbaranayaan midba kale u soo dhaweynaya wuxuu ku oranayaa keenan ka faraakatiinada iyo ku jawaabaya si wanaagsan hadaba wuxuu sheegayaa inay isku diyaariyaan niyadana ka dhaadhiciyaan inay ku noolaan doonaan xabsigan 100 maalmood sidoo kale wuxuu sheegayaa wax kasta oo ay u baahnaayeen in loogu diyaariyo xabsiga gudihiisa dhanka kale ninkan ayuu ku oranayaa imisa sano ayaa tahay ciidan wuxuuna ku jawaabayaa 17 sano ninka imisa sano ayaa tahay adna dambiile wuxuuna ku jawaabayaa 3 sano dambiilaha ayuu ku oranayaa xabsiyadii aad soo martay iyo xabsigayga isbarbardhig ku samee isagoo sheegaya hadaba ninkani in xabsiyada caadiga aan laga helin barkin markiiba tusaya qolka meydhiga wayna ka helayaan sidoo kale wuxuu sheegayaa 3 waqti quraacda qadada iyo cashada inay heli doonaan una ka baxaya kadib waxay ku fadhiisanayaan miis iyo 2 kursi waxayna iska wareysanayaan xaalka meesha waxayna isku raacayaan inay dareemayaan qabow imikana waxay noo sheegayaa in kamarada lagu wada xiray qol kasta halkaana lagala soconayo dhaqdhaqaaqooda maanta waa kulankoodii horeeyay ee askariga iyo dambiilaha waxaana oranayaa ujeedka muuqaalku waa inuu badbaadinta kala ka ciirsada lacagta meesha taala xeelad ama dagaal waxayna u dhaqaaqayaan dhanka sariirta isagoo ka dambe oranaya dadka waaweyn waan ixtiraamaa laakiin aan isla ogaano keeneebaa weyn soo helo sariirta hoose isagoo la kaftamaya wuxuuna ku oranayaa anaa kaa qaleynaya ee khuurada iga ilaali isagoo ninka kale ugu jawaabayo waan khuuranayaa soo gaadhay aroornimadii leerka ayaa la shidayaa iyagoo isnabaya ayaa kii halka sare saarnaa ayaa oranaya askarigeenu khuuro badanaa halii 2 indhood ba isku keenin waxa gaaraysa maalinkii labaad iyagoo ku caajisaya durtadiiba wuxuu weydiinayaa su'aal wuxuuna ku oranayaa kaaga khuurada nacibow maxaad ka shaqayn jirtay wuxuuna ku jawaabayaa waxaan dhigi jiray lacagaha isagoo oranaya hata $500,000 ayaa la igu leeyahay ee iga qal waxaana loo keenayaa cunto waxayna sheegayaan inay iska yara wanaagsan tahay maalmuhu way iskuri doonaan ilaa laga soo gaadho 3 4 5 ilaa maalinka 10aad isagoo soo noqon doona ninkii ragga soo xareystay wuxuuna soo gelayaa gudaha isagoo ku oranaya waa maxay faraashkan dhulka yaala wuxuuna ku oranayaa aabbaha qurada iska baro wuu istifaacayaa ninka ciidanka ahaa isagoo oranaya dadku waxay ku dhahdaan waad khuuraysaa balse waa iska dhalanteed waxaana rabaleyl oran doonaa habeenkii koowaad ee uu seexday qolkan wuxuu ku oranayaa maxaa isleedihiin maanta wuu idin soo booqday wuuna idin siin doonaa kan xidhan ee aad u jeedaan wuxuu ka mid yahay 9 qol ee idinka xidhan isla markiiba waxaa laga furayaa albaabkii gudaha hore ayayna u gelayaan balse dibadda waxay ugu imanayaan qalabkii jimicsiga wayna la u qaadan waayaan wuxuu sheegayaa 1 saac oo kaliya inay ku leeyihiin maalin kasta sidoo kale wuxuu sheegayaa inta qalab ee yaala goobtan iyo magacyadooda wuxuuna ku oranayaa ma ka hesheen haayeen oranayaan gudaha ay ku soo laabanayaan 2 qol oo isku xiga ayuu la kala gelayaa talaabada xigta ay qaadi doonaan waxa laga jari doonaa $50,000 waxaana lagu oranayaa baaqigiina $450,000 mid ka mid ah haddii uu baxo ka kale ayaa qaadan doona maxaad ka leediin ayuu ku oranayaa wuxuuna xasuusinayaa 10 cisho ay soo dhaafeen iyagoo ka fikiraya 90 cisho ee u dhiman kadib wuxuu go'aansanayaa mid walbaaba inuu sii wato ciyaartan maadaama uu 10 cisho ee hore uu aad iskaga fududaa 90 cisho ee soo socdana ay ka rajeynayaan inuu aad uga sii fududaado 10 cisho ay soo dhaafeen waa la is horkeenayaa mid walbaabana wuxuu ku dhawaaqayaa waan sii wadanayaa wayna farxayaan maadaama ay aqbaleen waxaa laga jari doonaa $50,000 si ay u gudbaan 90 cisho ee dhiman waxayna bilaabanayaan halkii saac ee jimicsiga waxay si fiican u qaraacayaan birta ilaa laga gaadhayo halkii saac walbaaba waa caadi ilaa laga soo gaadhay maalinkii 15aad cuntada ayaa laga bedeli doonaa waxayna ka walaacayaan cuntada waqtigu wuxuu isku rabaa waxaa la soo gaadhi doonaa maalinkii 20aad ee challenge-gan lagu sheegayaa inuu iman doono 10 maalmood oo maalin yacni 100 maalmood 10 maalmood ayuunbuu waqti la qaadan doonaa qol cusub ayaa loo furayaa waxaana u soo kordhayaa kijo wayna ka helayaan sida loo qalabeeyay iyagoo xasuusanaya cuntadii hore cuni jireen wuxuuna u sheegayaa
saddexda waqtiba inay halkan ku karsan karaan. wuxuu odhanayaa waa maxay Master Khuura uu ku raagay kitchada armu dhamayaaba cuntadii. qaybaha kitchada ayaana ninkan la tusayaa iyo waxyaabaha ku jira, wuxuuna ku odhanayaa si fiican u cuna una ka tegayaa. inaguna waynu raaci doonaa oo ninkani maalmaha u soo laabto baynu la soo laaban doonaa. maalinkii 7aad ayuu soo laabanayaa, balse waa iyagoo dibadda taagan. way israacayaan, gudaha ayay gelayaan. qol hor leh ayuuna u furayaa, balse waaba maktabad. wuxuu u sheegayaa maktabaddan inay yaallaan buugaag aad u fara badan, balse hal waqti oo keliya ayaa loo ogolaan doonaa inay soo galaan. gudaha ayay gelayaan, wuxuuna qabsanayaa buug isagoo ninkani ka helayaa. ninkii helana buug ayuu hore kasii qarsanayaa, balse cil ayaa lagu odhanayaa waana la arkayaa. waxaa kaloo ninkani tusayaa kombiyuutar daalay oo giim keliya lagu ciyaari karo. wuxuuna ka odhanayaa kaybaad oranaysaan, ma giim inaad ciyaartaan mise akhris. wayna moraal jabayaan oo way iskaga soo baxayaan, wuuna iskaga tegayaa. wuxuuna ku soo laaban doonaa maalinkii 4aad. wuu u imanayaa, wuxuuna u sheegayaa inuu u hayo lama filan. wuxuuna ku odhanayaa yaa ku horeynayaa, waxayna ku hagaagaysaa ninka askariga ah. waxaana loo furayaa qol hadiyada yaalaan. askariga ayaa soo qaadanaya mid ka mid ah hadiyadihii, wuuna soo baxayaa, balse ninkii kale ayaa gelayaa. wuxuuna isaguna soo urursanayaa alaabo badan oo gaadhaysa ilaa $30,000. ninka askariga ahaa ayaa isaguna furaya alaabtiisii, balse waxaa uga soo baxaysa $20,000 oo kaasha. wuu farxayaa, waxayna ku ciyaarayaan waraaqado, sidoo kalena timaha ayay iska xirayaan. maalmuhu waxay socdaanba, maalinkii 50aad ayaa la soo gaadhayaa. haddaba waxaad dhamaysateen 50 maalmood. dib aan idiin celiyo. ninkan wuxuu xadayaa buugaag isagoo ku qarsanaya shoortiga dhexdiisa. sidoo kale wuxuu u sheegayaa askarigii hore in halkiisii uu keenay ayna la kulmi doonaan. hadda way soo geli doonaan. intaa ka horna ninkii kale ayaa lagu xidhi doonaa qol yar. haddaba askarigan ciyaalkiisa iyo xaaskiisa oo xiisay ayaa u iman doona, waqtina way wada qaadan doonaan. ninkii kale ayaa laga soo saari doonaa qolka yaraa, isagoo askariga u iman doona, kuna odhan doona alla maxaad baashaal ka dhareegtay, anna waan gaajoonayaa. intaa kadib maalmuhu waxay isguraanba 60, 70, 80, 90. maalinkii 100aad ayaa la iman doonaa. maxaa dhici doona haddaba maalinkan 100aad? waxaana la soo gaadhayaa maalinkii la rajayn jiray oo hadda rumoobay. waxaa lagu yeedhayaa gudaha xabsiga, waxaana laga qaadayaa daaha, mise waxay ku guulaysteen $480,000. wuxuuna ku odhanayaa tani waa lacagtiinnii aad u soo samirteen ee fuula ama riixda. ugu dambayn way ka soo baxayaan xabsigii ay ku soo jireen 100 maalmood. dibaddana waxaa ku sugaya ninka askariga faamilkiisii, wayna la dabaaldegayaan. fadlan haddii aad ka heshay muuqaalka, subscribe noo saar channelka, muuqaalkana like saar. mahadsanid.